دشان حتى تصبحان بلها مويلكم كلها وقيق دشان القلب حتى وديريسان وقلبوا لها الجزان حبوبنا كيف كويران guriga gabadha guriga ku jirtay in ninka markuu soo xoogay banaanka imaaday markay mid qayleeso marka dubsada uu taagna marka dambe hadaan la hadalno anu waxa ku dilaa uu yiri hada faariig gashta ka bacdina walaashiisa wada gaar soo gali gurigan ku fiirshay waa barneed alaabteeda halaasana marka gabadha walaalay imaadeen waana wadeen caawa daawadayaal 19 September ay ku beegan tahay taariikhda gabar yar oo 5 jir ah ayaa lagu kufsaday degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir maxay noo dhiman halkee loo socdaa waxa soo badanaya sanadka 2020ka kufsiga loo geysanayo dumarka 5 jir ayaa degmada Kaaraan lagu kufsaday maxaa xigi doona dhibaatooyinka xoogan ee sanadkan ku dhacaya dumarkeena gaar ahaan daa'irteena ma aan wax laga aamusi karo gabarta oo guriga xaafadda islaan iidadeeda wax ka soo qaadanayso oo guriga ku dhagan albaabkeedu deganaay gabartii gacanta ka qabsaday gudaha la galay gudaha hadoo la galana gabartii waa faraxumay ayadoo qayladeeda la maqlay waa la tagay hadii loo tagay ninkaana baahaysto waa gabartii laga soo waday ninkina intaan aniga soo socday telefoon baa laga soo wacay waa la dhaqaaqay gabar la dhalatay baawar saartay dhinacaas gubadlay ilaadeen marka ninkii ma la qabtay geystay kufsiga mise uu baxsaday uu maqan yahay walaashiisa ayaa guriga ka waday guriga walaashiisa oo gubadlay oo jira marka in gabadha la kufsaday see lagu ogaaday waxa lagu ogaaday saldhig ayaan tagay refertan qaatay refertadii digfeeradangeeyay ayaga cadeeyeen dawladda federaalka waxaan ka codsanayaa in xuquuqdeeda laga qabto gabartayda fa waxa lagu sameeyay u jeedaan xaq aan leeyahay waa in laga qaadaa sharciga islaamka shariicada islaamka waa in lagu xukumaa maxaa inoo xiga maxaa soo socda daawade maxaa la filan karaa wadanka wax aad iyo aad looga xumaado war haweenka ilaaliya